Soomaaliye bal Soomaali Maxamed hadalkaas u fiirsada reer koodi baa dabada iga galay saas ay leeyahay kan baa leeyahay sidan kale baa leeyahay inshid wuxuu igu leeyahay hadalkii dambe iga cudur daartaan diishidaya kana ani أنا كنت تري وإذا كنت على وقت ويا مع حالك صباح السبت لا وسمع إن معمد شرادو إن بلن كيما صارت كبحين بنشير والله أنا كبحين أنا كمان تحسي أيام الكوفت أنا أذوق قبو أوكي أذوق الكوفت أنا أيام قبو الكوفت هذا ما يشوف شرك موقف كل ظروف وكل معناها العقول عن حتى يكون صوت هاي أنا عارف أنت إنه ليش هالسوق كلاي وحن كسوق كلاي إن عدو كلا إن نورس مستقر بدن سمعت كلام ما ندوني نقول جبتو أيها نسان قف نفتا إذا قبنك إلالية مش نوشي قنبن وحن وقت تنازلي إن تسبير كذا 600 وواحد بدن وقت تنازل هذا لحن كم يا ما دفع القاعدة يو أو لبنا قوض لو قباء وأنا كمرد حي عن كوك بصوم أسرين معان وحك استعدان كوسيستي وح وقادم وقلنا قواي قرار كيو أتسوقرتي إني راقون نعاوني كبش شرف لبا قباواكن لكن كقول يا قرار كاسمير بإياه لاي أنا كاس حتى هذا السوشيال ميديا يقول على طول إنه بينها وسوى نفتح يا شيخ لا يمكن يشوف كسرعيس إذا كفوا يقدروا ولا يقول يا عوض كوفي كبري بعد وزلفنا كل حمر بس حمسي العشرة يصير الصراحة يعني كيف كمان كنت قبل أسنى حلال من كل يوم أنا أسنى تقف كتير يستمر يعني متعهر نحن أنا ما أتكلم كذا بعدلاس ولا سكسونا أنا ولا سوي سعي بلا بدنا حرام إنه واحد حالينا بدنا إنه نسوي وجه يعني سقف كنوش سوق شنكر وإنه كمان كرا وأريها حسيبنا برشة كنا أنا حقيقي يقولون نورون معانا حقيقي يقولون نورو أنا أوكي إذا يسوع أنا ده أبغى يسوع كله أنا سأدي من كذا سنة ولا بحثان أقدر في ويدا مرة هذا الرقلات البريء على السوشيال ميديا أنا والسوشيال ميديا أنا والسوشيال Okay. midaan ku soo day baa اسم محمد مدلالكي ما كنت أنا صاحب ولا الإهل ولا واحد سوق أنا يعني ما خلعنا تبتن وكتعنا أنا ميري هاي جوات تقانا أنا هذا هاي تقانا إن كفالة قاضي أنا ميري جالس إن كراوي اسم محمد مدلالكي ما كنت أنا صاحب ولا الإهل ولا واحد سوق أنا يعني ما خلعنا تبتن وكتعنا أنا ميري هاي جوات تقانا أنا هذا هاي تقانا إن كفالة قاضي أنا ميري جالس إن كراوي marka aad bogsato in ay xalkiisu noqdo oo xalkiisu fiicnaado hataa talaabo qaadaysa in garabkaaga ahaado oo noqdo ugu horeeyo qorniyaas ka gala kan wax ka samee okay hadise أنا نروح الحين والله أنت وكيسر ده أنا وحي سيان من معنا أنا أسبب المسلمين أنا ولي قبل صلاة عليه كم حنجب كده حنو البحث محي دوني معنا البحث محي نقربان وخوي لك وصانا بدنيا وأنا وارين وبدين waxaas oo dhan weeyaan cadeymahayagu ku jirto
oon isku difaaci karayay oo waxaan doono samayn karayay baan gobonimo qaatay Soomaaliyeed kuwan ilmahaygan meel u dhigay waliba inantaa Soomaaliyeed ayaa ii gartay wallahi caqligaas aniga iguma jiro xiniyuhuna kugu jira maabalay waa kuwa lagula garab taagan yahay watan maanta igu dhacdo kale codkan u dambeeya hadda idin shiday wareerkiisu caynaya dhubaanta hooyada ka wasan inantu qabaa dhubaanta yareerkooda kuwa caynaya waa kuwaas aniguna kuwaan u hiilinaya oon isleeyahay ha dhisnaadaan waa kuwaas aniga halkaas baan kala taaganahay inanka nimcaan inantaa ay wada joogaan ayaa waxa dhacday hooyadeed baa xanuunsanaysay halkan gobonimada ka sameeyay laakiin intay igu noqotay baan idin sheegaya caawo waayahay gabadha hooyadeed baa xanuunsanaysay markaa buu igu yidhi hawshaasaa jirta waa ka oo inuu buuxo doonayay markaa baan dhahay okay orod iska bax markaad soo laabato dee guurkeena hawsheena aan dhamaysan aan intaa turka iska sii tago meelaha kale baan iskugu qasbiyan dadku ma hadday isguursadaan inay isku meel uun joogaan imisa isqabaarlada kala jooga maybe guri ma baxayo guri uma tagayo ilaa aan hawshaada sii dhameeyo laakiin adigu hal mid iigu feebar samee nin ehelkayga buu ahaa in adeerkay ah ayuu ahaa hal mid iigu feebar samee buu yiri waxaan ku maxay tahay wuxuu arrinkaas inaan meediyaha la soo dhigin inta aan noqonayo oo beledkii aan joogay aan ku noqonayo oo reerkii u noqonayo maadaama oo waxaan ku ori inanta hooyadeed bugto ninkiiba hadana guursaday hadana sida waceeb bay ugu yara tahay marka in adeer ii feebar samee hayban waay aniguna xaq uma lihin nolosha horeyaan ka hinaaso because waan ugu galay reer dhisan intaan dumiyo anaa labada dadhow anoo anigu tanaasula waa qaata waan qaatay sidii bay hawsheedii ku dhacday sidii ay hawsheedii ku dhacday waan qaatay aabahayna sidii buu ku yidhi aabahayna uu nala qaatay wuxuu maxaa meediyadii waxaa naga galay haddaad labadiinaba isku qanacsan tihiin oo labadiinaba habi isku tihiin maxaa meediya iyo dadkaas iyo naga galay khalaas waayaa hawsheedii sidii bay ku dhamaatay muqdishoan ku aqalgalnay muqdisho markaan ku aqalgalnay ayaa waxa dhacday xataa hees baan soo wada qaaday inanka Soomaali Maxamed cid wuxuu sheegtaa anigu ma garanayo qof inta aan wacay aan odhan nimcaan baa iskuursanay hebelow ma jirin nimcaan cid kastoo iga xidhay cid kastoo rafiiq lahaa buu iga reebay cid kastoo aan aqaanay buu iga reebay nolosha wuxuu igu soo xiray guri keligii aan ku ahay anigu hadday xaaskiisu soo wacdo halkay ahayd inaan muxuu ahaayay masayro ama aan waxaan ku hurdee aan cadhoodo inantaas anigu xaq uma lihi inaan xin iyo xaasad ku noqdo waa ina Soomaaliyeed samad garan markaas aniga waxaan sameeyay aniga halkaas aan fadhiyo halka kula hadli jiray macaan oo ixtiraam siin jiray oo oran jiray way soo wacaysaa markaa baan oran jiray ka qabo la hadal caadi weeyaan qolka uga soo bax ixtiraam si waayahay aniga markaa waxay ila tahay aniga ma arkayo inaan doqonnimo sameynayo waxaan arkayaa inaan reer badbaadinayo oo leeyahay muxuu ahaayay inta inantu xanuunsanayso hooyadeed bugto waa ina walaashaayo kala la dareen noqo xiise okay sidii waxa dhacday inantii markaa ma oga hawsha cid waxba ma oga laakiin reerkoogu way ogyihiin ana reerkaygu way ogyihiin asxaabtaydiina in xogogaal waa ogtahay laakiin aniga way iga reeb ma heesi kartid buuri meel ma tagi kartid buuri meel kaliya ma bixi kartid asaga un baan daba socdaa haduu aadaya alayhum madaxtooye aaday lahum meel aad ana asagan daba socdaa un rafiiqana melihi ana salahayn sidii waxa dhacday uu tagay
sheekada waa idiin soo gaagaabinaya nuxurkaan rabaa inaan idin gaarsiiyo waan noqday markuu noqday anoo walaca buu iga tegay anigoo walaca ayuu iga tegay waayahay waxaan heshiiskaygu ahaa waan idiin soo gudmaray marka aan tago ayaan wax walba soo shaacinaya anigana waxaan ku gardhiganay maadaama aan maanta media joogo arrinkayga qarsoonaanen ilmahayga la oranayo yaa dhalay goormaad guursatay waxaas su'aali inay xaraan weligeed baa gabadh la isla guursan jiray weligeed bay dhici jirtay anigu ma arkin waqtiga dee wax weyn waxaad yaraysato ayuunbaa wax weyn kugu noqda okay inankii wuu tagay markuu tagay sheekadii baa sii dheeraatay